aadan ugu faraxsanahay runtii inaan maanta nimaadno magaalada tan Mareergur annagoo ka qayb qaadanayna horumarka magaalada. waxaan dhagax dhignood aragteen saldhiggii magaalada tan Mareergur. waan u mahadcelinayaa runtii maamulka gobolka iyo kan caasimadda iyo magaalada tan maamulkeeda oo isku howlay in magaalada tani ay yeelato xarun bulsho oo bulshadu isugu timaado loona dhisay sidoo kaleeto haddana ay iska xilqaamaan xarumihii kaleeto oo maamulku ku shaqayn lahaa. halkan aan hadda taagannahay waxa weeye dugsi hoose dhexa ku shaqeeya. waa dhul asaguna dan guudaha uu ku deeqay waxaa ku deeqay yacni Dr. Axmed Mahdiya ku deeqay. asagana waa u mahadcelinaynaa khayr allaha siiyo iskuulkan halkan ka furan Al-Ma'muun hoose dhexa weeye hadda, laakiin waxaanu dhagax dhigna sare in lagu daro dugsi sare in lagu daro oo bulshadu baahideeda waxbarasho ay halka ku qaadato ilaa heer jaamacadeed marka dambe loo gudbo magaaladu ay yeelato. waad arkaysaan magaaladu aad ay u korto. waxaa laga yaabaa magaalooyinka degmooyinka lagu dhawaaqi doono inay ka mid noqotaa laga yaabaa marka inay horumarkeeda bulshadu awaasay u horumarsata magaalada weyn. bulshadu say hore ugu kiciso, bulshadu say u walaalowdo, bulshadu say macnaheeda iyo muunaheeda u soo saarto unbaa lagu kaalmaynayaa. qofkii wax qabsadaa wax lala qabtaa. marka aad iyo aadan ugu mahadcelinaynaa bulshada qaybaheeda kala gedisan oo iska xil saaray arrimahan in la koriyo bahad jiilka soo koraya oo dhallinyaradan la koriyo qalbigooda, maskaxdooda, maamulkooda la koriyo. aad iyo aad ay muhiim ugu tahay. waa rijaalul ghadi iyo banaatul ghadi, wiilashii berri iyo gabdhihii berri weyn. maanta in la diyaariyo waa muhiim oo loo diyaariyo sidii ay hogaamiyayaal ummadda hago wajka wanaagsan u haga oo mutacallimiina ay noqon lahaayeen.